bandhigga buugga habeenkii geerida iyo mucjisada nolosha oo qoray Cabdixakiin Cabbaas Iimaan ayaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Buuggan ayaa xambaarsan dhacdooyin kala duwan sida cafiska ka oo muhiim u ah bulshada, daryeelka agoonta iyo weliba arrimo kale mucjiso ah ayaa ku dhex xusan buuggan. Sheekooyinka kale ee buuggan ku jira ayaa waxaa ka mid ah qoraaga buuggan Cabdixakiin Cabbaas Iimaan lagu dhuftay 11 xabadood isla markaana looga tagay mid ahaan waana qayb ka mid ah waxyaalihii ku kalifay inuu qoro buugga la magac baxay habeenkii geerida iyo mucjisadii nolosha. Qoraaga ayaana cafiyay shakhsiyaadkii ka dambeeyay falkaasi. Sidoo kale waxyaalaha kale ee buuggan ku xusan ayaa waxaa ka mid ah garab istaagga carruurta agoonta. Cabdixakiin Cabbaas Iimaan qoraaga buuggan ayaana gacanta ku haya 800 oo carruur oo agoon ah. Munaasabadda lagu soo bandhigay buugga habeenkii geerida iyo mucjisadii nolosha ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, aqoonyahan, culimaaddin, ganacsato, haween iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Qoraaga buugga Cabdixakiin Cabbaas Iimaan ayaa ka sheekeeyay sababihii ku kalifay qorista buuggan, isagoona sheegay inuu doonayo in tuulo kasta oo Soomaaliyeed laga hirgeliyo goobo wax lagu baro carruurta agoonta. qisada buugga habeenkii geerida iyo mucjisada nolosha laba ayaan u kala qaybin doonaa. habeenkii geerida markii laga dhahayo wuxuu ka hadlayaa habeen iska caadi ahayd oo sida caadiga xaafadeyda aan u socday, habeenada kale waxba kama bedelnayn, laakiin qisadii ay isbedeshay 4 saac habeenimo markay ahayd. laba nin baa ii timiday, weliba magacayga ayay iigu yeerayeen. markaan gadaal u fiiriyey mid baa xabado igu dhuftay. markii aan dhulka ku sii dhici rabay kii kale ayaa u soo gurmaday oo 6 igu dhammaystiray. lugta ayuu igu dhuftay, wuxuu yidhi naga keen, wuu dhintay, waa maqlaayay. markay iga tageen meel dalcadaheed waa xasuustaa, god qashin meesha ku yaal anigoo ku dhici rabo, gabar xaafadda deganeed Xabiibashiina la yidhaah ayaa qaaday meydkayga sida ay ayada hadalka u dhigaysay. waxay tiri Cabdixakiin oo meyda ayaan wadaa, laamiga ayay i geysay. habeenkaas habeen dhib badan ay ahayd, laakiin aniga nacfi badan ayuu ii yeeshtay. waxaa dhici karta habeenkaas haddii aysan isoo mari lahayn maanta go'aankaygu inuu intaan ka bedelnaa lahay. hadda 800 ay agoonti gaaraysaa dugsiga quraanka iyo iskuulka dhigto. 77 ka mid ah hadda dugsiga dhexe ayay ka gudbeen, dugsiga sare ayay u gudbeen. 10 ka mid ah dugsiga sare ayay ka qalin jabsheen. carruurtaas aniga isku qabiil ma nihin, isku magac ma nihin, ilaahay dartiis ayaan wax u barnaa. ujeedaduna ma ahan haddaan wax u barno 800 iyo 1000 inaan wax barno. hamigeyna wuxuu mataqaanaa gaarsiisan yahay ama uu yahay dhammaan tuulo kasta iyo degmo kasta oo Soomaali ay degan tahay in laga waayo ruux agoon ah ama jeebka agoon aan wax baranaynin. meeshaas waa go'aanka aan u soconno. hamigeynu waa kaas, ma aha 800 hadda aan hayno ama 1000 aan gacanta ku hayno, waa agoonta dhammaan Soomaaliyeed. buugga markaan u soo laabto marka qaybtiisa koobaad wuxuu ka hadlayaa qaabkii aniga la ii dilay. wuxuu ka hadlayaa isbitaalka markaan intaanan ka bixin nimanka inaan cafiyey. isbitaalka markii aan ka soo baxay nimankii la ii keenay, walaalahood ay dhaheen xoolo ma ku siinaynaa, maqaayada ay lahaayeen. mid wuxuu ugu yiri 24 geelaan ku siinaa, midna wuxuu ugu dhahay 12 geelaan ku siinaa, xoolo badan ma haysto. intaba waxaan u sheegay inaan u cafiyey. wiilasha kadib oo dhan waa isla joogi jirnay, meel aan ka shaqeynay ay shaxaad u soo doono jireen, weligay kama xanaaqin. culimadii, aqoonyahankii iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda soo dhaweeyay bandhigga buuggan muhiimka ah oo markaas ay ku jiraan waxyaalo fara badan. qisada uu ku dhisan yahay sida uu Cabdixakiin ii sheegay waa qiso aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed inay aad u maqlaan bay u baahan yihiin. sababtoo ah waxaan nahay mujtamac dagaal ahliya dhexdiisa ka dhacay oo qabiil baa la isu laayay. mar dawlad iyo shacab baa islaayay, mar qabaa'il baa islaayay, mar magac diin baa dadkii lagu gumaaday. dil nooc kasta leh ayaa ina soo dhaxmaray ummadda Soomaaliyeed ku dhacay. dilka isaga ah laba siyood baa loo wajihi karaa. mid waa in la iska arguto oo nin walba ninkii wax ku sameeyay intuu raadsado inuu siduu uga aarsan karo uga aarsado. choice-ka labaad ee inoo furanna waa in la iscafiyo horey loo socdo. macluumaad badan baan runtii ka hayaa, ku dayashuu mudan yahay. marka insha Allah taala ninkan alla kaalmeeyo, alla garab istaago, qof kasta diinta u khidmeynayna garab istaag. maskaxdaadana waasax noqoto, imaamad ha ka raadinin qofka, qamiisna ha ku qasbin inuu gashto. qalbigiisa iyo wanaagu sameeyay ka dheexo. Support Cabdixakiin not just with applause but with action. Buy the book, share the story, spread the message.
to Abd Hakim. Thank you for your courage, for your compassion, and for reminding us all that writing can truly be a form of service. May Allah bless your efforts and expand the impact of your work. أنا جعله دمان ذلك ماشان فديو أو ضد أخياره أو أصحابه أو بدن إن كان الجرب استاجو هوش إنسان كوي كان بوكليه لإسرجيس جرايو هدا أوديت بشي $10 $20 $60 $50 وحواي إناد قيب قادتيد أرنتاس الماس أقوانت اللغو عاويو xildhibaan mukhtaar axmed saajid iyo xildhibaan yuusuf xayle oo goobjooga munaasabadda ayaa ka hadlay muhiimadda uu buuggan u leeyahay bulshada iyo weliba caawinta agoonta ayagoona u mahadceliyey markaasi qoraaga buugga cabdixakiin cabaas iimaan ah buuggan aad wada aragteen ee loo bixiyay habeenkii geerida haddii dhan kale loo fasirana la dhihi karo habeenkii nolosha dhabta ahayd because muxuu ahaa wax lagu geeriyooda ayaa ku dhacay laakiin ilaahay baa qoray in uu cabdixakiin noolaado waxaase muhiima inaad sawirataan cabdixakiin haddii ay tiisa gasho habeenkaas wuu tegi lahaa haddii cabdixakiin habeenkaas sidaa uu ku ahaadane macnaheedu waxaad ogaataan waxaa baaqa lahaa waxaan oo juhdi ah cabdixakiin buuggiisa caawa aniga wuxuu isii siiyey nolol cusub cabdixakiin nimanka dilay noocay rabaan ha ahaadaano cabdixakiin dadka uu ka soo jeedo si fiican aan u aqaanaa soomaalida waa dadkay dhahaan dushooda carro lagama bedi karo marka inuu tanasulo waa iimaan saa'id ah iyo dadnimo iyo soomaalinimo ku jirto maxamed tolman Universal TV Nairobi